أهل الجنة جرد مرد كحلا لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم بالنبي يقول أهل الجنة جرد مرد أهل الجنة قد يلن مايان تمت نقرنا يلن مايان حقا ولا ملكلا تمت بدنا يلن مايان قدنا يلن مايان بالنبي يقول كحلا عنده غنا واحد مودا عندك علين لو مرياد مودا بل ويبكو سميسن تهيبا لا يفنى شبابهم dhallinyarnimadoodu ma gabowda buu nebigu yidhi 3 jir wa fii riwaayatin 30 jir baa lagu joojinayaa ama 3 jir intaa ka yaraani maayaan mana dhaafayaan laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa thiyaabuhum dharkay xidhaana ma baaliyoba buu rasuulku yidhi jannada dhexdeeda suuq baa ku yaalla suuqa aljumuca la yidhaah suuqaaba helaljannuhu iskugu imanayaan buu rasuulku yidhi فتهب عليهم ريح من الشمال ضبيل أي حقا كجا إيمان دون تدنا عبدح ضبيل شاسا وجهه كل فنيسا سورة دودي بيبدل إساب ونبي قولي كلر كدر كانوا بيبدل إساب أيكو كلر كي حافظة كجت سجين دركوجو كلر كي ماها وجهه كلر كي ماها أيكو سو نقول ينضمر كوجي حورا دودي حور العين تبا أوران دونتا والمركز سوقا نوقف بحذين نقص نقطين dharkiini waa isbedelay kalarkiini waa is soo bedelay waa in sidee markaaba yakoon oranayaan wallahi annaka intaan niga maqnayn wala in si bedelay ninkana suuqa adduunyada markaan tagna maxaan kala soo noqonaa qurux misafool xumo boos baad kala soo noqon iyo cawlaan iyo siigo iyo dhafoorkaaga dhaf baa ka muuqanaya markiiba suuqa jannada ku yaalana qurux baad la soo noqon qurux dharkaagu baaliyoobi maayo dhallinyarnimadaadu gaboobi mayso mitir iyo badhna la ekaani maysida waxaad noqonaysaa dhararkii nebi aadam calayhi salaam 60 diraacan fi samaa wa 30 mitir baa lagu qiyaasaa ma gaboobaysid ma dhimanaysid ma bukoonaysid ma baahanaysid baytalmay geli maysid ما سيحنيسد دراري هبين وادسك عياري وطمان إن شاء الله هذا قولوا إن شاء الله هواك الجنة نبينا كشكي عليه الصلاة والسلام نساء الجنة هواك الجنة مؤمنك الله قد دياريه ورسولك يري mid kamida iyaka haweenka jannada muuminka loogu diyaariyay mid kamida buu nabigu yiri haddii adduunyada u soo bixi lahayd oo adduunka loo soo saari lahaa udgoonka jirkeyga ka soo baxaya buu nabigu yiri ayaa samada iyo cirka isqabsan lahaa buu rasuulku yiri gabadha muuminada ee jannada galaysa muuminka jannada loogu diyaariyay haddii adduunyada u soo bixi lahayd oo dhoola cadeyn lahaydna iftiinka iligeyga ka soo baxa ayaa cadcadda iftiinkeyga shiiqin lahaa buu rasuulku yidhi xuuralcaynta ka mida faryaradeedaa yar buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo saari lahayd ragga adduunka ku nool oo dhan baa fitnoobi lahaayoo biyuhu ka iman lahaayeen buu rasuulku yidhi marada yare madaxa ku sidato waa masarka yar madaxa ku sidato ayaa adduunyadoo dhan waxa dulyaaloo dhan ka khayr badan buu rasuulku yidhi mu'minku jannada markuu galana muraayad u baahani maaye xuuralcaynta dhuunteedu isku daawanayaa markaasuu isku eegayaa wejigeegu akhrisanayaa waxaa ku qoran naxnu raadiyaatu falaa naskhad annaku waxaan nahay kuwa ninkooga raalli ka ah oo weligood aanan cadhoonayn wa naxnu alkhaalidaatu falaa namuut annaku waxaan nahay kuwii weligood jannada ku waaryaayay ee dhimasho aan u saaxiib noqonayn wa naxnu naacimaatu falaa nab'as annaku waxaan nahay kuwii alla u nicmeeyey balaayo iyo buus iyo dhibaato aanan arkayn طوبى لمن كان لنا وكنا له كنوع هذا النن أنا نكون حاصل نقولنا اللي بنبي ليه ابن عباس الله رالك نقول يسقي يا أبيه به مؤمنك بنك القيامة كتاب كيس قعنت مديك مركز لقصيو واتن آيات القرآن كإلهي كل شيء وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا إهل كاكو كوانا دون قاد كوهاي ستماها إهل كان الدوية قاد كوهاي ستو
ibtilaa baa laguu siiyey ikhtibaar waa lagugu eegayaa inay ilaahay daacaddiisa ku seejiyaan iyo inaad daacadda ilaahay aad ku fulisid baa lagugu eegayaa laakiin ehelkaaga runtu waxa weeyaan waa ka maalinka qiyaamaha muuminka gacanta midig kitaabka marka laga siiyo ee xisaab yaroo fudud la xisaabiyo markaabuu u gadoomayaa baa ilaahay yidhi ehelkiisii oo sugaya ayuu xaggooga u noqonayaa buu ilaahay yidhi albaabka jannaday joogaanay ku sugayaan baa leeyihi albaabkay ku sugayaan kitaabkiisii buu gacanta midig ka qaatay xisaab fudud baa la fudaydiyey xisaab fudud waa maxay lama baadhbaadhin buuggiisii lama baadhba haddii la baadhbaadho waa khatar ilaahay baa asturay oo naxariistiisii buu huwiyey addoon baa lala soo keliyoobi doonaa banka qiyaama buu nebigu yidhi oo la odhan doonaa adiga rabbi baa kuu yeedhaye soo kac markaasaa ilaahay caza wajalla sitrigiisaa ilaahay huwini doonaa markaasuu ilaahay addoonka uu la hadlayaa hadalka addoonkiiyo rabbigiisa dhex maraya makhluuqu maqli maayaan malaa'igtu maqli maayaan muqarrabiintu maqli maayaan waa laga qarinayaa waxa uu ilaahay qirsiin doonaa dunuubtii adduunka dusheeda addoonkan uu ku qarsanayay baa ilaahay u sheegi doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkaygiyo dembigii caynkaas iyo caynkaa ahaa ee maalin heblaayo halkaa aad ku samayseen ma xasuusan tahay markaasuu leeyahay markaa buu ilaahay odhan doonaa adduunka dusheedana waan ku asturay maantana waa kuu dembi dhaafay kitaabkiisaa gacanta midig laga siinayaa deedna xagga ayaa jannadu u ordaya markaas allah inaga dhigo kuwaas maydaan dembi lahayn muu inagu jiraa may macsuumiin ma nihin dembi uu naga dhacayaa laakiin naxariista ilaahay baa ballaadhan ilaahay naxariistiisaan rajaynaynaa mar walba ka quusan mayno dadkana ka quudin mayno naxariista ilaahay dadkana ka quusin mayno muuminka markaa kitaabka la siiyo ehelkiisii buu ku noqonayaa ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa yidhi mid kasta oo kitaabka gacanta midig laga siiyey xawraadiisii baa iridda u taagan oo sugaysa markaa buu daymoonayaa daymashada oo keliya ayaa qaadanaysaa la yidhi 70 sannadood carooska habeenka ugu horreysay xaaskaaga lagu soo hooyo 20 daqiiqo saa ma u eegi kartaa war maxaad naga eegi bay ku odhan indhahay faraha kaa gelin maxamed yani maba haleelaysid ba adduunka dusheeda 20 daqiiqo qurux intaa la egoo la eega dadka adduunka jooga ilaahay maba siinba fa maxaad u malayn gabadha 70 sano aad daawanaysid quruxdeeda iyo jamaalkeyga ibnu cabbaas wuxuu yidhi laakiin ayaa daawan doona ma taqaanaa waa ka adduunka intuu joogo maxaarimta indhihiisa ka laabta kaasaa xuurlacaynta daawashadeeda ku raaxaysan doona waqul lilmuuminiina yaguduu min absaarihim udaymoon saasuu u daymoon muuminku 70 sannadood tucaaniquhu wa yucaaniquha ku boodi marka iyadna way ku soo boodi mucaanaqada waa qooroqooraynta mucaanaqadoo keliya buuhi ibnu cabbaas haddana 70 sano kole haddana haysan buui sidaa unu haysan markuu jannadii arka naciimteedii 4 shay oo adduunyada inta la joogay qofka bini aadamka nolosha ku qaraaraynaysay ayaa ahlaaljannaha maskaxdooda ku soo dhici doona waa 4 waa geeridii waa gabowgii waa baahidii waa bugtaantii 4 baa maskaxdooda ku soo dhici doonta ma naciimka intan la eg ayaa ilaahayna siiyey markaasay 4 xasuusanayaan baa la yidhi xagga saraa laga dhawaaqi oo la odhan doonaa yaa ahlaljanna inna lakum an taxyow falaa tamuutuu abada yaa ahlaljanna maanta laga bilaabaa jannadan waxaad ku dhex leedihiin nolol daa'ima dhimasho dambe arki maysaan nicmad joogto ah oo nuqsaan dambe aanan lahayn dhallinyarnimo gabow dambe aan lahayn caafimaad qab xanuun dambe aanan lahayn allah ina siiyo jannadaasaa ilaahay inoogu baaqayaa maalin walba oo lagu leeyahay salaada markaad tukanayso ee mu'adinku uu ku leeyahay xaya cala asalaax xaya cala alfalaax jannadaa ishorkeen jannadaa ku xisaabta bishii rabadaan baa soo gashay jannadaa ishorkeen
sadaqad baa bixi lagaa leeyahay jannada is horkeen quraan baa lagu leeyahay kaale akhri jannada is horkeen aakhira wax u bixi baa lagu leeyahay jannada is horkeen markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam majliskiisa isagoo maalin fadhiya ayay nimankii muhaajiriintii maka ka soo hijrooday ayaa sare kacoo nabigay ku yidhaahdeen nabi allow magaalada maka annaku aan ka imanay ka soo baxnay maa uu zamzam baan ku haysanno iib ma ahayn halkan biyuhu waa iib magaalada madiina ceelashana niman yahuuda inta badan iska haysta lacagaan ku iibsanana ma haysano markaa ninkii ceelka bi'ru ruuma lahaa ayuu nebigu u tago wuxuu ku yidhi asxaabatayda muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabbaane markaasuu u fasixi maayo oo anu ceelkaa yar baan leehayo biyaha yar baan iibiyaayo reerkayga ayaan ku biiliyaa markaa buu nebigu ku yidhi bicniihi bicaynin fi ljanna il jannada ku taalla ceelkaagaa ku bedilo ku iibso markaasuu yidhi may ceelkaygaa yar iska iibin maayo iska kaydaa buu ka yidhi cuثmaan binu cafaan radia allaahu canhu oo daki ahaa oo caqli badnaa oo inshiisu meel dheer wax ka arkaayey oo basiiro ilaahay uu siiyey ayaa hadalkii nebiga qalbigiisa ku dhibcay bicniihi bicayni aljanna il jannada ku taalla ceelka igaga iibso markaa buu ninkii iska diiday ninkii ceelka lahaa cuثmaan baa ninkii u tagoo yidhi ceelkaaga haddii lagaa idhaahda lacag ku iibi ma iibin lahayd haa waan iibin lahaa way gorgortameen markaa waxay ku heshiyeen 30,000 oo dirham cuثmaan lacagtiibuu soo qaado uu dhigay ceelka furihiisa igu soo wareeji buu ka yidhi uu ka soo qaatay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam buu u keeno wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah ceelkii bi'ru rooma haddii aan keeno ishii jannada ku taallay ninkaa loo ballan qaado iska diiday aniga ma lai ballan qaadayaa markaa buu nebigu yidhi haa markaa buu yidhi ceelka furihiisii waa kan asxaabtaadana waa waqaf uu yahay ha dhaansadaan buu yidhi ceelka haddooto biyihiisa waa waqaf hal isticmaala buu rasuul allah markaa buu nebigu farxay indhaha ayuu nebigu markaa kor u qaado wuxuu yidhi cusmaan ilaahow raalli baan ka noqday raalli ka noqo cusmaan maanta laga bilaabaa camal dambe hadduunan samaynba intaa buu jannada ku galay buu rasuulku yidhi bicniihi bicayni aljanna indheergarata dadkaas ahaa soo maha ya mise siyaasi salaadna aan tukanayn baa lagu odhan indheergarata weeyaanoo 50 sane soo socda isbeddelka geeska afrika ka faallooda ay dhegaysta idaacad intoo la soo fadhiiso ya allah caqliga aakhirada ku tusini waaya caqli maaha nolosha dambe caqliga kuu jeedin waaya caqli maaha araggu haddaad aakhirada ku arki weydo ku xisaabtami weydo arag saxa maaha janno hadday maqlaan asxaabta rasuulku waxay hayaan halkaaba iska dhigayeen marka jannadaasaan is hordhigaynaa markaan soomayno salaadayno sadaqada bixinayno zakada bixinayno waalidka u samafalayno janno nin baa nebiga u yimid oo yidhi jihaad baan rabaa oo inaad jihaad baxdaad u timid haa jannaad doonaysaa haa jannaan doonayaa nebi allah wax kale ma doonayo labadaadii waalid ma nool yihiin may hooyaa nool ma iyadoo kaa raalliyaa timiday mise iyadoo safarkaaga aan raalli ka ahayn ma iyadoo ooyaysaan ka imiday markaa buu nebigu yidhi sow janno uma socotid haa hooyadaa ku noqo lugteeda qabso halkaa baad jannada ka geli doontaa adigu ilzim rijlayha uma aljanna buu nebigu uma aljanna lugteeda qabso jannada halkaa baad ka geli daacadda ilaahay markaad gudanayso waxaad is hordhigaysaa waa janno macsi markay naftiiyo shaydaanku kuugu yeedhaan ee shaydaanka iyo naftu ay ku yidhahdaan ilaahay caas oo dembiga samee oo waxaa ku dhac markay naftiiyo shaydaanku ku yidhaahdiin waa inaad is hordhigtaa ilaahay cadhadiisa is hordhig ina batsha rabbika la shadiid ina rabbaka labilmirsaad ilaahay ku xisaabtin cadhadiisa ka cabsiya naftaada markaas marka labadaasaa la doonaya ilaahay inaan ku caabudno طamacan khawfan wa طamaca cabsi iyo rajo cabsida goormaa la rabaa waa intaad caafimaadka haysid eed nolosha haysid ee dhallinyarada aad tahay eed amniga haysatid ilaahay cabsi ku caabud maalintaad heer xanuunsatidna ama xaalad adag ay kugu timaaddo ilaahay raxmadiisa raje markaas oo ha quusan oo waxaad tidhaahdaa naftaada waxaad ku tidhaahdaa rabbigay waa naxariis badane
ودقسي بدنه وكريم وياه إلهي وكريم كان لا شقين سوى كريم كريم سيدي نكي حشك أسعدي مرأة اللي مركو إحرامك أحدي أيوم مغلي يقول لبيك اللهم لبيك مركا دوشي سال لقلي لا لبيك ولا سعديك حشك آذو سعوت الله ما أقبل سفرك آذو حمان قادتين إلهي كا أقبل ما يوسك جوك هذا البعض شكل الدواق مدي سجد قداشي سجوغا هذا الكيلا مقشيي كيبا كويري يا شيخ هذا كحجنا ديبو لبيك اللهم لبيك مركا ترى على الجواب ما مغلي مركا ما مقشي ها وان مغلي ما هذا المقشي هذا المغلي وعد تضبي الله باتسنو ايان الهي غريغيسا و سو قصدي مر لي مركان حشك ان احرامك سو خدو اي تلبيده سو بلاببا لا لبيك ولا سعديك با ليليهي وwaxa dushayda laga leeyahay xashkaaga cimradaada sacigaaga cibaadada aad u socoto ilaahay ka aqbali maayo ba leeyahay iska joog ba leeyahay haddaan gurigiisa ka joogo oo socodka aan xaqiisa u dhaqaaqay aan ka joogo xagee kale oo taga balisheeg buu adaan tala ka qaadana balisheeg buu kay ma jirtaa meel kale wuxuu ama hal lay aqbalo ama yaan lay aqbalin anu ilaahay baan u socdaa xaqiisa buu meel kale uma socdo ka quusan maayo ilaahay raxmadiisa waa kariim waa raxiim الرحمن وحليم وستار عبتي نور دم قرينا يا مات دول قاد بدنه ورمع عدالة إلهي ما كن جوجنا الدنيا ده بالي دول ستر يا دول قاد إلهي ما كن جوجنا ستر أستر كيس إلهي بنا أستريا إلهي بنا دول قادنا يا لكن هذه عدالة اللي يجي لها أعماش الجركنا ما تكسو فليسيا هي عصيان كان إلهي عاصنا إنه هي سيدا معاصده ودوينكينا مقاحيهنا قريهنا إلهي اللوغو عاصنا يو دقيقة أدونك هنا كنا ولا نحق ما يلنا المانت تضبي الله بعتصنا المغلى يا أبو يري واللي يقول جوابا يا واللي إليه هاي إلهي حشاقا كأقبل ما يسكجو دما جوغا كجوغي ما يوان سعودا قلوريا ويمدي ضواف كيبو بلابي سعيقي مركو دميي ayaa dushiisa laga dhawaaqo la yiri labbayka wa sa'dayk waan ku aqbalay waan ka ajiibnay 720 hore xajidayna ilaahay waa ka aqbalay baa lagu kiiba la maqashiyo marka hore maqlay marka buu sheekh waa lagu aqbalay wuxuu albaabkiisa ma ayna albaabka loo garaacayna ma jirto buu kay ma quusanayna anagu ilaahay baan haysanaa marka ilaahay raxmadiisa ka quusan mayno dadkana ka quusin mayno bal umada waan tarqiibinaynaa waanu naxariisanaynaa dacwadda ayaan ugu yeedhaynaa dacwadda markaan umada ugu yeedhaynana waanu dhibrinaynaa bu'ithum muyassiriina walam tub'athuu mu'assiriin xadiidkaas siduu ku yimiday nin caraabiya ayaa masaajidka nebiga dhexdiisa cawradiisa intuu la soo baxay ayuu masjidka nebiga dhexdiisa ku kaadiyey saxaabadu markaasay ku yaaceen markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam mah وارك جوكسدا مركابو نبيكو صحابتي كجوجيي مركابو نبيكو كويري وارك جوكسدا كاديديسا كو غوين كاديدا كو غوينينه كجوكسدا halkuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba buu isagii buu nabigu markaa u yeeray kaale adag markaasuu nabigu fariisay masaajidka ilaahay baa leh meel ilaahay lagu caabudo salaada lagu tukada quraanka lagu akhrista tasbiix iyo tahmiid iyo takbiir baa loogu talagalay ma aragtaane wax kale masjidka looguma talagalin isagii baa ka sheekeeyo yiri wallahi ima dibsan oo ima dilin oo ima aflagaadayn macallin isaga lamida horuma arkin dib damana oo arkin ma yiri macallin isaga lamida ilaahu aniga iyo muhammad noo naxariiso cid kale ha noolo naxariisan buu keenay saxaabadiisii buu nabigu ku yiri halku ku kaadiyay biyo ka badan ku shuba inma bu'ithum muyassirin bu'ithum waxa adduunka laynii keenay oo laynii soo saaray inaad dadka xaqa u dhibrisaane inaad ummadda xaqa ku adkaysaan adduunka layniima keenin buu rasuulku bi'tha
ولقد بعثنا في كل قرية نذيرا